iyadoo maanta ay dadka reer Somaliland u dabaaldegayeen 18 May oo ku aadan 25 guuradii ka soo wareegatay la soo noqoshadii qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta dalkan Britain waxa ka dhacay banaanbax aad u ballaaran oo ka dhacay Lamberton Downing Street oo maktabka ra'iisul wasaaraha dalkan Britain iyadoo banaanbaxaasina ay dhigayeen dhammaan jaaliyada reer Somaliland ku dhaqan dalkan Britain daafiisa iyagoo gobolada oo dhan isaga yimi haddaba waxa shacabka reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Britain wehelinayay wafdi ballaaran oo ka timi Jamhuuriyadda Somaliland oo isugu jirta xubno wasiirra iyo aqoon-yahano muddo markii ay banaanbaxaasi soconayay ayaa xubnahaasi wafdida ka mid ah ka ahaa iyo xubnihii qabanqaabadu waxa ay qaadeen waraaq qoraal oo ay u geeyeen maktabka ra'iisul wasaaraha dalkan Britain muddo yar kadibna waxa ay halkaasi kula hadleen shacabkii iyo jaaliyada reer Somaliland ee goobta ku sugnayd iyagoo uu sheegay wixii ay kala soo kulmeen maktabka hadaladoodina waxa ka mid ahaa sida tan oo sharaf leh oo qiimo badan ayaa annaka wasiirada xildhibaanadii Ingiriiska la socdayba warqadii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland soo qoray ee ganacsiga ahayd codsi inay Ingiriisku dawladda Somaliland aqoonsadaan ayaana laga gudoomay ra'iisul wasaaraha laga gudoomay waxana hadii alla ilaahay filaaba waa jawaab sharaf leh oo aynu ku filanay Ingiriis inuu si sharaf leh uga garaabo 25 jirka Somaliland ilaa maanta waynu gudbinaynaa waraaqaha ka daalimayno waynu garnaqsanaynaa waynu jiibaynaa maanta waxaanu diinay warqadnaqsiga Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda soo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland runtii garnaqsiga la soo qoray laga fiirsaday laga baaraandegay waynu u gudbinay waxaan rajaynaynaa waa jawaab khayr leh waxa cajiib ah markaan dukaanada soo maraynay iyo markaan dariiqa marayno qof walba wuxuu leeyahay happy independence day warqadda maanta aan u gudbinay xafiiska prime ministerka ee farta ka saarnay waxay cadeynaysaa rubuc qarni dabadeed sida ay nooga go'an tahay qadiyadda Somaliland ayay dareenkeeda qaateen sida la sheegayna waa maalin shacbigu meel kasta isaga yimidaba uu isku duuban yahay tani waxayna tusaysaa gooniskutaankeenu inuu yahay lagama soo noqdaan 25 sano dabadeed waxay cadeynaysaa damiirkeena iyo masiirkeena inaanu kaga dhabayno tani waxayna tusaysaa caruurtii 25 sano ka hor aanan jirin ama jirka jirka ahaa inay maanta halka ka ciyaaraysan wadiin qaarkood jaamacada ka wada baxeen oo qaar marka xilliga lagu dhawaaqay Soomaaliland barkood aanay jirin qaarna xilligeeda ay dhasheen tani waxay tusaysaa sidoo shacbiga gudaha iyo dibadba isugu duuban yahay tani dareenkeeda maanta waxaanu eriyaan ku cabiri karnaa ma waa maalin farxadeed waa maalin aynu qadiyadeenu ay qaadatay xoog cusub iyo dhig cusub ay qaadatay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay dadka youthska ee faraha badan leh ee qarqiyay meel kasta Downing Street ay maanta ay shacbiga Ingiriiska ay wada arkeen sida ay ugu helayeen new dynamic bay qaatay dhig cusub baa soo galay jaaliyada reer Somaliland oo goobta ku sugnayd ayaa iyaguna warbaahiyaasha iyo mikrofoonada ay siteen waxay ku dhawaaqayeen inay dawladda Britain u aqoonsanaato dalkooda iyo dadkoodaba dad madax bannaan oo adduunyada wax la qaybsan kara waxa xusid mudan maanta oo ay ahayd maalin roobaad 18 Mayna ay ahayd in iyadana la furayay maktabka baarlamaanka dalkan Britain iyadoo halkaasina ay marisay boqorada dalkan Britain wadada ay ku mudaharaadayeen ama ay banaanbaxa ku sameeyeen shacabka reer Somaliland iyadoo halkaasi mashxarad iyo calanka reer Somaliland oo halkaasi aad uga muuqanayay boqoraduna ay gacanta u luleysay Aynaawi Cismaan Ducaale TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland London